wakaalada wararka ee Kuwait ayaa soo wareysay in Amiir Sheikh Nawaaf Al Ahmed Al Jabir uu muujiyay sida ugu faraxsan yahay heshiiska in la xaliyo khilaafka u dhaxeeya walaalaha iyo waliba in la hubiyo midnimada Khaliijka iyo Carabta. waxa uu intaas ku daray in heshiisku ka turjumayo himilooyinka dhinacyada ay qosayso si loo gaaro danaha ugu sareeya ee dadkooda. waxaana uu mahadceliyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dadaalada taageerada. wasiirka arrimaha dibadda iyo warfaafinta ee Kuwait Sheikh Ahmed Al Nasir Al Mohammed Al Sabah ayaa xaqiijiyay in wadahadalo miro dhal ah lagu qaban doono iyadoo la raacayo dadaalada dhexdhexaadinta ee lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisadda Khaliijka. waxa uu ku sheegay war uu sii daayay telefishinka in dhammaan dhinacyada ay qusayso ay cadeeyeen intii ay socdeen wadahadaladan iyo waliba inay u hamuun qabaan wadajirka Khaliijka iyo Carabta iyo xasiloonida iyo in la gaaro heshiiska madambeys ah oo lagu gaarayo waxa ay ku tilmaameen ku saabsan midnimo waarta u dhaxaysa dalalkooda iyo waliba wanaagga dadkooda. tani waxay imaanaysaa iyadoo ay jiraan warar sheegaya in maamulka madaxweynaha xilka ka sii dhamaanayo ee dalka Mareykanka Donald Trump uu xoojinayo dadaalkiisa ku aadan dejinta xiisadda Khaliijka taasi oo horseedi karta horumarkiisa.